duleedka kore ee magaalada Gaalkacyo dhanka waqooyi ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay musharax Maxamed Cabdirasaaq Abuukar oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya dabayaaqada sanadkan 2016 waxaa soo dhaweyntiisa ka qayb galay shacabka magaalada Gaalkacyo waxgarad dhalinyaro iyo haween waxaana musharax ay dadka ku soo dhaweeyeen calamo iyo waliba calamo qoyan iyadoo musharax Maxamed Cabdirasaaq dadkii soo dhaweynay oo mid u gacan qaaday haweenkii halka ku sugnaayay iyaguna waxay ku dhawaaqeen erayo ay ku muujinayeen dareenkooda farxadeed ee ku aadan dhanka musharaxa intaasi kadib waxaa musharaxa loo soo gudbiyay halka uu ka degi lahaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug xaflad lagu qabtay ayaa musharaxa lagu soo dhaweeyay iyadoona xafladaasi ay ka qayb galeen mas'uuliyiin waxgarad nabadoono iyo dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale oo aad u badan halku dhiga xafladda ayaa ahayd garab istaag musharax Maxamed Cabdirasaaq Abuukar oo adkeeyay midnimada dadkii ka soo qayb galay xafladda soo dhaweynta musharax ayaa halkaas ka hadlay iyagoona sheegay in loo baahan yahay waqtigan qof ka saari kara xaalad Soomaaliya hadda ku jirto iyagoona sheegay in musharax Maxamed Cabdirasaaq kaalin weyn ka ciyaari karo haddii loo doorto madaxweynaha Soomaaliya waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dadkii goobtaasi ka hadlay aad baa musharaxa u soo dhaweynaa musharax waa ku soo dhaweynaynaa waa ku kalsoonahay waa ku hambalyeynaa boqolkiiba boqol baanu ku soo dhaweynaynaa maadaama hanka inta la eg oo madaxweyne Soomaaliyeed aad doonaysid annagu ninkii doonaya oo u qalma madaxweynaha hankiisuna yahay waa soo dhaweynaynaa waa ku soo dhaweynaynaa adiga wax badan baan ku sugaynay waayo waxuu dalku u baahan yahay cid aqoonteeda iyo waayo aragnimadeeda leh siifi ahaana in badan soo shaqeeyay xog badanna ka haya dalka dibadiisa iyo gudaha annagoo halkaan joogana waxaanu dareemaynay sifahaas ninku sifoobay inaad tahay maadaamaanan is arag haddana waa ku farxaynaa waana kugu soo dhaweynaynaa gobol ahaan iyo dad ahaan meel kastoo codkee u gaarana waxaan leenahay war wax badan baa Soomaali kala lunsanayd wax badan baa dhibaato badan iyo lugooyo badan soo kala gaartay waxaan leenahay war waa haynaa wadadeedii maanta inagoo aan kala leexan waa inaanu saan u gaarno miraha Soomaalnimo si la isugu keeni lahaa ee ah siyaasi dalka iyo dadkana yaqaan wadadana soo maray wadan badan xog badanna haya inaanu helno oo Soomaaliya meel u jeedo waanu u baahannahay waan haynaa waxaan leenahay annaga iyo intii Soomaalinimada doonaysaaba waan ku taageeraynaa waan kugu soo dhaweynaynaa musharax Maxamed Cabdirasaaq ayaa goobta ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo kaga hadlayay waxqabadkiisa haddii loo doorto xilka madaxtinimada Soomaaliya isagoona u mahadnaqay dadkii halka isugu yimaaday walaalayaal inaan musharax ahay caawa idinkuma cusbo anigana wax cusub hadda aan idin sheegaya ma aha sidii uu xiriiryaha noo sheegay bishan May horaanteedii ayaan waxaan ka degay magaalada Xamar halkaasoo awalba hore aan u joogay shaqo laakiin aan safar u baxay waa soo noqday waxaan ku dhawaaqay musharaxnimadayda marka waxay tahay maxaan ugu kacay inaan u istaago jagadan maxaan u raadiyay inkastoo taariikhdayda xiriiryaha wax ka sheegay waxaa jirtay shaqo muhiim ah oo aan soo qabtay oo ka maqnayd halkaan sanadkii 2007-2008 waxaan ahaa agaasimihii madaxtooyada dawladdii federaalka ku meel gaarka ahayd 2007-2008 waqtigaas isaga ah magaalada Xamar sida ay maanta nabad u tahay sida ganacsigu u kala socdo sida hay'adaha caalamiga ah iyo safaaradaha iyo ay jidadka u maraan uma aysan jirin xilli waxay ahayd siyaasad ahaan aad u adag nabadgelyo ahaan aad u adag xamar iyo baydhabo waa joognay
qofkii waagaas Soomaaliya warkeeda ka baxay oo maanta soo noqdo horta wuu arki karaa isbedel hadduu jirana in la xaqiro ma fiicno laakiin maxay tahay isbedelka annaga aan raadinayn waxaan ognahay in meesha maanta aan joogno meel runtii aad uga sarreysa ka horumarsan inaan gaari karno waxaad moodaa inaan soconnay ilaa xad oo saqafkiina soo celiyay oo gurigu nagu gaaban yahay waanan ognahay intaasi in ka badan in Soomaali ay socon karto maxay tahay waxa xadidaya horumarkeena waxa ugu weyn oo aan u istaagay oon u raadiyay jagadan waxa weeye inaan soo celiyo Soomaalinimo waxa maanta ka maqan Soomaaliya oo ugu horeeya waa Soomaalinimo waxa jira waa dadkii Soomaaliyeed oo ku kala dhex jiro kalsooni darro markay jirtaan ma samaysan karno ciidan qaran oo dalkeena iyo dadkeena aan ku daafacno waan yeelan karnaa ciidamo qabiileed waan yeelan karnaa ciidamo goboleed laakiin ciidanka Soomaaliyeed inuu noqdo mid midaysan oo u taagan difaaca dalkiisa iyo dadkiisa waana laga rabaa inaan ka shaqeyno taasna waxay ku imaan kartaa marka dadka kalsooni isku wada qabaan taas waxay ku imaan kartaa marka mushaharkiisa wada bixinayno ciidanka qaranka oo gobol walba iyo cid walba laga soo aruuriyo oo mushaharka ay wada baxsadaan labo waxaan u istaagay inaan keeno dawlad daacad ah oo caadil ah oo musuqmaasuqa ka fog waxa ugu horeeya oo wiiqiya dawladnimadeeda inay adkaato ay kobcdo waxa weeye dawladda inay ahaato dawlad daacad ah oo ka fog musuqmaasuqa waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto istaraatiijiyada aan rabo inaan dawladnimadaas ku dhaqo oo ku gaarno horumar iyo nabadgelyo kow istaraatiijiyadeedu waxay ka bilaabanaysaa amniga nabadgelyada qayb ka mid waa aniga sheegay sida aan ku gaari karno waa annagoo samayna ciidan qaran labo waxaan u soo joogay oo aan ka qayb qaatay inaan ciidan Soomaaliyeed u dirno tababaro dibadaha oo ay soo noqdaan welina xaalkeennii uusan wax weyn iska bedelin tababarku waa muhiim waa kobcinta dhaqaalaha haddaad amni haysato siyaasaddaadii aad isbeddel weyn ku samaysay ka shaqaysid dhaqaalaha saddexdaas waxay noqonayaan saddex arrimood oo iskaabaya dhaqaalaha waxa ugu horeysa aan samaynayno waxa weeye inaan raadino shaqo abuur wayna ka shaqeeya danta dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa madaxweyne ka shaqeeya oo hormariya danta dadweynaha ka hormariya tiisa oo aanan u shaqeynin dana dad kale see ku gaari karnaa waa in shacbiga ay ka qayb qaataan siyaasadda musharax maxamed cabdirasaaq ayaa noqonaya musharaxa koowaad ee kaambeynkiisa ka bilaabay dalka gudihiisa isagoo soo maray deegaano badan oo ka tirsan Puntland iyo Soomaaliya si kastaba ahaatee musharax maxamed cabdirasaaq Abuukar ayaa la filayaa inuu socdaalo kale ku tago deegaano kale oo ka tirsan Soomaaliya iyo dalka dibadiisa sida Cali Nuur Cabdi Star TV Gaalkacyo